السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كشدو هذا عشرة ما أنت واحد للدونا إن أري قيمها كوجرو سيدا ayaad kusoo daawican kartaa shaashada qiimaha dhabanka ah. Maxaan ka wada hal mar isla aragna marka waxaan sameysana array name-teeda array name waxaan u bixiyay samow waxaan dhahay arrayda qiimaha ay qaadan doonto waa 10 size-keeda waxaan ka wadaa waa 10 niraada cafwan kadib waxaan leeyahay waxaad ka bilowdaa 1 2 3 4 4 5 6 iyo 10 waxaan rabaa marka in shaashada aan kusoo daawaco qiimaha number 2 numberka 4 6 8 iyo 10 waxaan u baahanahay marka si nambaradaas aan u helo inaan sameysto for loop kaasoo ii soo daawacaya dhammaan qiimaha. Waxaan leeyahay marka for inti wuxuu ka bilaabanaa indexkeyga 0 kadib waxaan leeyahay marka wuxuu ka yaryahay 10 waxaa yaala 0 1 2 3 4 5 6 7 8 صح صح كده حاليا اي بلس بلس يعني هذا دان له يداوع يعني هل كان وحو سمين دونا for loop kan hadda wuxuu sameyn doonaa inuu ii daawaco dhammaan qiimaha arrayda igu jira numberka koowaad marka laga bilaabo ilaa numberka 10aad arki doonaa wakana laakiin aniga waxaan rabo sidaan ma aha waxaan rabaa in la ii daawaco kaliya qiimaha dhabanka ah sidee aan ku heli karaa marka waxaan u baahanahay inaan meeshaan u sameysto wax la yiraahdo end condition wax jeekiniga ii sameeya waxay noqon kartaa taa inaan isticmaalo if statement aan dhaho kadibna waxaan rabaa marka inaan jeekin ku sameeyo qiimahan dhaban miyaa mise ma yani sida caadiga aan wada ognahay qiimaha dhabanka ah waxay u wada qaybsamaan dhammaantood labo waxay u qaybsantaa labo saddex uma qaybsanto afar waxay u qaybsantaa labo lix sidoo kale 8 saas oo kale 10 saas oo kale waxaan leeyahay marka qiimaha arrayda igu jira oo kan hadda marka koowaad 0 waaye kan kale 2 waaye 0 waaye 1 waaye 2 waaye saas ku soconaysa ma indexka arrayda indexka waxay ka bilaabataan markasto 0 waxayna ku eg tahay size-keeda oo laga jaray hal waxaan leeyahay marka qiimo kasta oo igu jira arrayda haddii uu u qaybsamo labo waxay ka dhigan tahay inay yihiin qiimaha aniga aan rabay oo dhaban ah sidee marka saas aan ku dhihi karaa marka meeshaan la joogo waxaa la isticmaalaa wax la yiraahdo module oo aan rabo marka laba aan u qaybiyo haraaga haddii uu 0 la mid noqdo inaan dhaho qiimahan waa qiimihii aniga aan rabay oo dhabanka ah waxaan leeyahay marka module 2 haddii uu 0 noqdo waxaad ii soo daawacdaa qiimahan problemka aan rabay inaan xalliyo sidan ayaan ku xalliyaa hadda aan fiirina marka compile aan run aan dhaho waa kaasa number 2 number 4 numberka 6 8 iyo 10 waaw sidee ku dhacday sidoo shaqeynaya programka marka ugu horeyso waxaan dhahay halkan ayaan ka bilaabaa marka ugu horeyso
waxaan samaystay array namekeeda la yiraahdo samow compilerka marka ugu horeyso run dhaha marka wuxuu ii sameyn doonaa inuu memoryga iga qabto 10 index oo index kasta uu qaadi doono integer 10 kaas isla marka qiimo ayaan siistay oo 1 ilaa 10 ah markaas kadib waxaan dhahay waxaan u baahanahay marka qiimahaas marka laga bilaabo numberkan ugu horeeyo oo 0 ka bilaabo maayo in numberkan ugu dambeeyo oo 9 ku eg in mid jeekin la igu sameeyo waxaan u baahanahay marka inaan isticmaalo wax la yiraahdo for loop waxaan ka bilaabaa marka for loop kayga 0 sababtuna waxa waaye array index waxay ka bilaabanayaan 0 hadda kan waa 0 kana waa 1 kana waa 2 kana waa 3 kana waa 4 ilaa soco kan waa 9 sooma marka ugu horeysa waxaan dhahaa marka waxay ka bilaabanayaan 0 waxaan leeyahay marka jeekan ku sameey kan I oo 0 ah marka yartahay 10 ha waa sax sooma halkan ayuu imaana marka wuxuu dhahaa marka samow qiimaha 0 maxaa ku jira 1 hadii loo qaybiyo 2 haraaga 0 miya maya waxaan soo daawacay ku laabana ay hal lagu daraa waxay noqonaysaa 1 markay noqotay inta 1 maxaa waay marka 2 waay inta ayuu imaanaa samow 2 waa 2 sama 2 marka loo qaybiyo 2 laba marka loo qaybiyo 2 haraaga 0 miya ha wuxuu ii daawacana marka labaad halo inta ku daraa kan laba noqonaysaa indexka laba maxaa waay 3 waay 3 marka loo qaybiyo 2 0 mu leeyahay maya kadib hal ku dar inta ma noqonaysaa marka 3 waxa waay 0 1 2 3 4 ku jira 4 marka loo qaybiyo 2 haraaga 0 miya ha sidaas ayuu ku soo daawacaa waxaan rajeynayaa programkan aad ayuu u fudud yahay inaad fahanteen oo aad ka faa'iideysateen waxaan idin leeyahay fi amaanillah